بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحكوت المامية وعد الله حقا لا يخلف الله الميعاد ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون لبدنا آيات سورة الروم كمدة إلهي أفر شيء كت المامية كو الله سبحانه وتعالى وحو تلمامية وحيو يبوها إني حقيه آدناها وحيو يبوها يا مسعو الشيغي إني دبيه مرلوات با إلهي سبحانه وتعالى وحو تلمامية ولكن أكثر الناس لا يعلمون dadka inta ugu badani waa wax magarata baa ilaahay yidhi garashada laga hadlaya waa ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo diintiisa garasho la garto oo jahliga mid marka hore bini aadamku uu wada wadaaga ilaahay wuxuu leeyahay wallahu akhrajakum min butuuni ummahatikum la ta'lamuuna shay'a ilaahay caloosha hooyadiin buu idinka soo saaray idinkaan waxba ogeyn iyadaan aqooni jirin laakiin rabbi wuxuu tilmaamaya wajacala lakum as-sam'a wal-absaara wal-af'ida wuxuu idin siiyey adawaatul cilm waxa lagu barto bini aadamka waxa ugu fududa wax ku bartaa waa arag iyo maqalka iyo maanka alla siiyey subxaanahu wa tacaala hadduu aragga iyo maqalka waayo aad bay u adag tahay inuu bini aadamku wax barto wax fudud ma aha ilaahay markaa wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaan idin siiyey samac iyo basar baan idin siiyey alla ku barataan noloshan ku garataan aakhiro ku fahamtaan hadduu bini aadamku garan waayo mas'aladaas oo ah si kale haddaynu u dhigno waa afarta su'aalood ee ugu waaweyn ee culamaa ilfalsafa ay ka hadlaan xaggaan ka imi xaggaan ku socda maxaan u noolahay haddaad su'aalaha ka jawaabi kari weydo noloshaadu qiimo ma leh iyo waxbarashadaadu toona waxbarashadaadu hadday garan weydo allaha ku abuuray iyo sababtaa dunida u joogto yani falasafatu lcasr waxay dhahaa what is life baa la sharxi kari lahay waa maxay noloshu maxay macno leedahay waad dhalatay muddaad joogtay waad dhimatay waintaha alamr macaynkaasa ilaahay kuwa nolosha intaa mooday wuxuu ku tilmaamay walaakina akthara annaasi laa yaclamuun dadka inta badani waa wax magarata baa ilaahay yidhi inta badani waxba garan mayso maxaanay garanayn ilaahay wuxuu yidhi yaclamuuna ظaahiran min alxayaati اdunya wahum can alaakhirati hum gaafiluun inta la yidhi waxba garan maayaan ayaa haddana ilaahay wuxuu leeyahy waxay garanayaan culimmada naxwadu waxay idhaahdaan qaar ka midi yaclamuunadani waxay beddel ka tahay ta hore ka'annamaa cilmigani uu la mid yahay ka laa shay inaad waxba garan iyo inaad wax garataa waa isku macne haddaad aakhiro naar ku socoto
haddaad allah ku abuuray garan weydo hadday ilaahay si aad u caabuddo garan weydo wixii kale aad garanayso oo dhammi qiimo ma leh waayo garashadu waxay qiimo ku leedahay waxay faa'iido leedahay waxaa laga yaabaa aqoonta la barto dadka inta ugu badanee aad ku xoogsatid buu u bartaa waa farhunguri 10 sano 20 sano 30 sano aad ku xoogsan kadib maxaad noqon haddaad wax u barato 30 sano saad wax u noqon lahayd nolol daa'imo kaa dambayso aakhiro jirtana aad garan weydo oo waxaad u liita سأوجد بها وكتمامية يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا waxay garanayaan baa ilaahay yidhi nolosha muuqaalkeeda sare in depth si gun le nolosha xataa u garan maayaan ظaahiran baa ilaahay ku tilmaama waxay yidhaahdaan tankiirkani waa litaqliil buu tilmaamaya muuqaalka sare oo fudud ayuunbay noloshana ka garanayaan macnaheeda dhabta ah ma garanayo qofka aan garan ilaahay cibaadadiisa iyo rabbi iyo weynidiisa iyo alle iyo siduu caabudi lahaa iyo maalinta qiyaamiya siduu u badbaadi lahaa iyo tan uu joogo siduu nolol degan ugu noolaan lahaa diintu maaha aakhiro oo qura tan baa loogu talagalay inta aad joogto inaad nolol degan ku noolaato qofku markuu garanayo meesha uu u socdo iyo danta uu leeyahay nolol degan buu noolaadaa markaanu se waxba garanaynin nolol dawakha buu noolaadaa walow uu lacag haysto walow uu madaxweyne iyo power leeyahay dadkaba dunida inta hantida leh iyo magac iyo maamuuska la ugu badan dadka istila faqaradu ismaba disho waa kaadixiin say beriska u raadinayaan bay dhintaan هلنا مركا إلهي كوا وحكوت الماما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وحقرنا يا نولوش موقال كيدا صار وحي علماء دويدا هلا بالشيء بي آيات وضت المامي سايو علمي قوة مركا الظاهر لغو حدين وحيري قليل إنو يي مر لبادنا مجالك وكشقين ايا إيريدا إرباننا برطان inay yana koobanto alxayaat adduunyaat labada dhanba way ka yarta wahum can ilaakhirati hum gaafiluun aakhirana waa ka dhagalayiin baa ilaah yidhi gaflay kaga sugan yihiin haddii aad ahmiyadda siiso juska ugu yar ama qaybta ugu yaree noloshaada ka mida waad ilowda inta ugu ballaaran ee noloshaada ka mida waa waxaad u liita waayo aakhiriya adduun marka la isbarbar dhigo dee horta adduunka la sheegaya adiga waa intaad nooshay adduunka dadka kale le waxba kaama gelini aduu 50 sano 60 sano 80 sano 70 sano meelaasaad noolaanaysa adiga adduunkaagu waa intaa dadka kale adduunyadooda adigu shaqo kuma lihid dunidu intan bay soo jirtay intay soo jirtay daadu waxba ku baad haysan adu waxa joogtay 70 sanado hadii lagu badiyo 80 90 meelahaas joogtay inaad 90 sidii aad u noolaan lahayd ka fakarto oo laga yaabo inaad 20 sano wax u baranaysay 30 sano u shaqaysanaysay konto ka sano 20 ka dambe sidii aad u noolaan lahayd bay ku baxeen iyo nolosh aan laga dhimanayn oo aakhiro jirta oo waaraysa inaad u shaqaysato labadaas isbarbardhigooda ka war waxa xaqiiqatan waxaad ka shaqaysaa baad aakhirana jawaabteeda helaysaa tan waxaad ka shaqayso hadday wax san yihiin iyo hadday wax yihiin taasun baad aakhirana jawaabteeda helaysaa haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa adduunkan iyo aqoonta taalloo dhamme wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila aqoonba waxa laydin siiyey waa wax yar dee waa idinka arkaya dunidoo dhan maanta inta isu tagtay wixii saynis yaallay iyo wixii cilmi yaallay iyo wixii laab jiray iyo wixii aqoonyahan jiray
ayaa wax yaroo aan shuba qabanayn oo la arkaynin isaga taag waaye oo la yidhi SARS baa la yidhaahdaa ama COVID-19 baa la yidhaahdaa ama waxaan laba arkaynin oo yar waxay yidhahdaan waxa virus dunida jooga oo dhan daasada kooka haddii lagu guro buuxin maayo bay yidhaahdeen waxa laaliya COVID-19 ka dunida oo dhan waalay hal daasada kooka ama buuxin karo waxaan daasad Coca-Cola buuxinayn ayaa alcaalam kulle aadan oo dhammayntu isu tegay uu taag waayey aqoonta bini'aadamku waa wax yar wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila shalan dhallinyarada kale waxaan ku lahaa ninkii la tilmaamayay inuuba aqoonta sayniska ugu badnaa waa qolyihiinna form 4 iyo meelahaasi waa dhigataa nin la yidhaha Albert Einstein E=mc² ninkii soo saaray Albert Einstein waxaa lagu sheegaa inuu yahay qarnigii tegay iyo kanba fiisigisyahankii ugu weynaa ee dunida soo maray word buu leeyahay la yidhaahdo laba shay xuduud male buu yidhi waa isaga aragtidiisa laba shay itnaan ilaa xuduuda lawma laba shay xuduud male alkown wajahlu linsaan buu yidhi universe kan garan mayno meeluu ku dhammaada buu leeyahay aqoonta bini'aadamku weli ma hayso xagguu ku dhan yahay waa la malamaleeyaayo waxay leeyihiin inta ifkiisu ina soo gaadho somewhat 92 mise meelahaas 92 million years ayuu diameterkiisu yahay bay yidhahdeen universe-keenu hadda arkayno inuu wax ka ognahay laakiin cidina garan mayso allihii abuurtuun baa garanaya ka labaad aan la garanayn buu yidhi waa jahlul insaan bini'aadamka aqoon darrideeduna xad ma laha buu leeyahay yacni wuxuu ogyaa yar aadanuhu wuxuu og yahay ayaa yar laakiin dadka badhbaa intaa yar markay ogaadeen allaba dafiray dee qur-aanka ilaahay wuxuu leeyahay falamaa jaa'athum rusuluhum bilbayinaat farixuu bima cindahum min alcilm waxaaqa bihi maa kaanuu bihi yastahzi'uun markay rusushu caddaymaha ula timi baa ilaahay yidhi ayay farixuu bima cindahum min alcilm waxay ku kibreen intii yaraydii ay ogaayeen ilaaha cirka iyo dhulka abuuray ee wax walba og ee bini'aadamka laftiisa abuuray ee aqoon isagu leh wixii uu u soo dejiyey oo ah aqoon aan marnaba gaf ku jirin aqoon wada saxan oo rusul loogu soo dhiibay oo bayinaat oo cadcad ayay may aqbalina farixuu bimaa cindahu min alcilmi baa ilaah yidhi intii yarayda ay haysteen bay la kibreen xogaagii yaraa ee aqoonta ay barteen ayay la kibreen baa ilaahay leeyahay dabeetana waxaaqa bihi maa kaanuu bihi yastahzi'uun waxaan leenahay marka aqoontaa baranaysaan waa inay noqotaa mid adduunkan idin anfacda aakhirana idin anfacda hadday adduunkoo qura aad manfac ka hesho aakhiro manfac ka weydo qiimo ma leh jahligaa kuu dhaamay wax qiimo ay leedahay ma jirto waxay qiimo leedahay markay tanna wax ka tarto ta dambana wax ka tarto waxay qiimo leedahay markaad ugu horraysiiso wixii ilaahay kuu sheegay lagu yidhi iyadu waa wada sax aqoonta midi waa tajaaribtii bini aadamka waxaana imika technology arkaysaan dee wixiisa ugu badani waa 150 sano wax ka yar technology-gan tirada badan le maanta dunida yaalla 120 sano ka hor gaadhi dunida ma joogin 110 sano ka hor dayuuradii ma joogin 120 sano ka hor wax gaas lagu shubo oo guuxaaba ma joogin la mid naafta lagu shubo wala mid petrol lagu shubo wala waxba toona lagu shubo waxa quree joogay wuxuu ahaa steam engines qar biyo lagu kariyo dhuxul ku socda oo maraakiib iyo tareenno dhuxul biyo loogu kariyo biyaha kuleelkooda steam engines ku socda
waxaa laga yaabaa 150 sano ka hor laydh ma joogin if la shitaaba bini aadamku wuxuu shidan jiray maxaa la yidhaahdaa kandhalka xaydha riyaha la shidan jiray xaydhi riyuuna dunida way ku filaan weyde markii dadkii soo batay kii ugu horreeyey waxoogaa soo saara ninka dunida ugu lacag badnaa ee soo maray gaas buu ka helay gaasta sooma taqaaniin tafeeriska lagu shito Rockefeller shidaalladii ugu horreeyey dunida la soo saaray gaas baa lagala baxay inta kale waa la qubi jiray petroolka iyo naaftada iyo waxa ku shaqeeyaaba dama jirin waa la daadin jiray gaaskaa lagu shidan jiray aqoontan bini aadamku uu maanta sheeganayo dhammi waa wax yar waxaan computer iyo qalab iyo waxaan ay ku shaqeeyaan waa transistorsku markay bilaabmeen waa 1948 something like that waa dagaalkii labaad dunidiisa dabadii waxaan uga dan leeyahay waxaan bini aadamku uu ogaaday waa wax yar shalay baan u ogaaday waxa sii jira ma dadka maanta nool awowgoodii afraad intaa midnaba ma ogeyn laakiin markasta waxaa la ogaa sida bini aadam loo noqdo sida aadane adigoo aad nolosha ugu noolaato sidaad rabbigaa u caabudo sida aakhiro ugu diyaargarowdo markasta dadku wuxuu yaqaanay what is life maxay macnaheedu tahay waayo ilaahay rusul buu soo dirayay rusushaasina dadka waxay barayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala say u bartaan sidaa ogeed mataqaanina aayadda qur-aanka ugu weyn acdama aaya fi kitaab illah yaa garanaya ya aayad kursi aayad kursigu maxay ka hadashaa acdama aaya fi kitaab illah saxaabigii la odhan jiray abi saciid ibnu lmucalla ayaa intuu masaajidka soo galay salaad tukaday isagoo salaad tukanayuu nabigu u yeedhay calayhi salaatu wasalaam dabeetana salaadiisii buu iska waday uma imanine markuu salaadiisii watay markuu ka baxay ayuu nabigu yidhi haddaan kuu yeedhay maxaad iigu iman weyday markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo salaad baan ku jiray markaasuu yidhi miyaad maqal ilaahay inuu yidhi istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum alle iyo rasuulkiisu hadday idin yeedhaan u kaalaya in laydin yidhi aqbala yani salaada faralka ah ee ilaahay la hortaagay lagama baxo laakiin salaada sunnada ah cid yeedhmadeedu waajib kugu tahay hadday kuu yeedho waa laga baxaa talaado salaad sanna ku jira hadday hooyadaa kuu yeedho waa inaad haa tidhaahdaa ama aabbaha kuu yeedho waa waajib taacadoodu laakiin salaadan aad ku jirtay waa sunne sunna waad ka bixi kartaa ninka sunna tukanaya waa amiiru nafsi rasuulku wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam anaaba kuu yeedho ilaahay rasuulkiisii iyo maxaad iigu iman weyday dabeetana wuxuu ku yidhi nebigu ma ku baraa acdama aaya fi kitaab illah aayadda ugu qur-aanka ma ku baha haa buu yidhi gacanta qabtay iyagoo albaabka ka sii baxaya u dhow ayuu yidhi ilaahay rasuulkiisa iyo soodigii yidhi intaanan albaab ka bixin baan ku barayaa wuxuu sheegay aayad kursigu ilaahay bay ku baraysaa aayad kursigu wax kale kama hadasho alle iyo sifaadkiisi الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلى آخر الآية وهي كرسك ورمس إلهي صفاتيس بتغانا سورة القرآن كوت المامي صدح جير هداد أخرضه إن القرآن كوردان أخرضين إلى أجرت وسورة الإخلاص قل هو الله محك والرمية إلهي بينا برية قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي بإسكان برية متقاننا أعظم سورة في كتاب الله سورة القرآن كوبوي
سورة الفاتحة. أبي بن كعب النبي وحكي عليه الصلاة والسلام كيف تقرأ صلاة بركة كنسهم هذا خريد أبو يدي بركة سوري أم الكتاب حنا خريا فاتحة نبي وحكي عليه الصلاة والسلام ما أنزل كما سودقين توراة إنجيل زبور يفرقان بوحكوين سورة الفاتحة وهو النبي قلت الماما يا إنا يتهي تسائل هي بقرآن كوشاقي 7 من المثاني والقرآن العظيم تضبط صون ونغضي قرآن كوي فاتحة محي كورنته قيبت كوادو دمي إلهي بينا برس يا مانتيس قيبت الضنبانة وبريضة إلهي بي الله ينقو بريا إذن إينا الله سيدا لو وينيو إيا سيدا لو برياهم بينا برس بكا أعظم صورة إلهي بي كبرس سبحانه وتعالى سيدا لو وينيو سا لو بريو صورة دادات صدح قورا خرد قرآنك أن وحودك ما تشيريني إلهي بي كبرس آيات دوين قرآنك إلهي بي كبرس أقول الله برتو حوين ناد إلهي برته أقول الله برتو حوين إن إلهي برتد يساد عابده أقول أنت بني آدم كيك هالوردن مخلوقات كلا برتودم ووحوح أنفعه لكنه ما دقن تطن أقول أنت مخلوقات كلا برتو عقل جينا لقوها لي إذنكم بالبعض دونا ليدو بارا أما إلهي برشاديس يا وحى رب الله حديدة يا آخر يا أدوم كان سيدو بني آدم كوغون نولان لها إساقو قف حر أو ربك عابدا إلهي بايدي انت تجربة قلينيني أنا إذن برايا الرسول با إلهي وصوتر رسولين الصحضين برتا kelmadaydu markaa waxay tahay aqoontaa baranaysaan ha ugu weynaato oo ha ugu mudnaato inaad ilaahay iyo sida loo caabudo baratid ilaaha ku abuuray ee kownkana abuuray ee noloshaadu gacantiisa ku jirto isaga wixii la weydiista la helo ee cid kale aanay dunidan ka talin inaad baratid sida loo caabudo in badanoo dadkeenna ka midi diinta waxay u haystaan dhaqan uun la soo gaadhay oo aan barasho u baahnay hooyaday baa tukan jirtay anna waa iska tukanaya bal su-aale ma idin weydiiyaa salaada iyo weysada iyo ku saabsan haddaad nijaas taabato adoo weyse qaba masalaadaad tukan oo mashaakil ma leh ma dib baad u weysaysaa oo mooysadaad ku celin ma meeshun baad yara maydhi maxaad samayn yaa oo la weysaysan maayo ma hubtaa okay haddaad labadii sujuudood mid ilowdo salaad baad tukatay labadii sujuudood baad mid ilowday waad waday mar dambaad xasuusatay inaad sujuud ka tagtay maxaad samayn سجود سهوي والله ما نسى بل هبية رقعت بالسوء علني يلا بس سجودات بالله لا يمنها وسجود قرات كتكتي ما حد رقعت بالسوء علني يعني وكتابة وهو سيء محل ده سفينة الصلاة كانت الودكتا وهي صلاة دو هدات شروط ده وحكم إذا كتكتو أما أركان توحكم إذا كتكتو سجود ما هجاجينيس ولا بد أما إن شرطك لا يماده أما إن لا يماده ما حي ركنك يا شرطك ما حيقول لك تسي يا كلا كرنا يا هاي ركنك وحنا الصلاة لا ينسى ما تكرم في الصلاة هذا كير كم يدفع حوش الناس لا يصير في هذا الله يمس ماذا ما يصير في يعني هذه لك شخص بلاكي موضوع يعني ما يصير ذكر كلام لنا
لكن صلاة الجنيه ده بيجي عشان حد يقول أنت سوى الشيخ الدين فلايا الشرط waxa la yiraahdaa intaan salaad bal la gelin waxa ka horeeya la iska rabo مثلا لو استقبل صوت كمان إن عرض الله صوت صوت كمان كرر ما هو سكاك قوان هذا تكتو أمر السجود ساد عددوك مغضان حمام الشراء لما أقولها شروط كهر رئيس الصلاة إياه أنت الصلاة كتشرتنا ويري تشوكتا لكن قبل الصلاة على الرباين تصور ما يسترات إن عرض الله أسطره قبلة اللو تشيستو اللي هو يستقبل كواسوا الشروط أركانتنا وحلا إذا هو حي صلاة كمدة إلا أنت داني صلاة وصحين أركانته وين أركانته السجود ما يسترته ولا بدنا تسوع لسه سيدنا تاسشيك سانا سحر ركعت لما تسوع لنسا كدب هدي يكون دويد ندركم كم تكون قنسا هدي كلنا ركعت دور لما تسوع لنسا waxaynu maalin walba shan goor qabanno haddaynan aqoon u lahayn waxay tilmaamaysaa inaynan diinto dhan aqoon u lahayn waayo shaygaad maalin kasta shan jeer samayso haddii aqoontiisu weli galabgalab noqoto dee kuwa kalena inaan aqoon badan loo lahayn baa meesha ka muuqata waxaan rabnaa markaasi darsigaygan oo dhammi wuxuu ku saabsan yahay hal masalo oo ah diintu maaha wixii aynu awowyadeen ka soo gaadhnay dhaqan iyo hidaahayo waxa kitaabka ku qorane quraan iyo xadiis ku yaale nolosha kale maalin walba oo soo kala hadaan Soomaa waxa soo kala hadaan inay cilmi barataan oo xagga diinta ma saacad qura u kala hadaan iyadana maalin oo dhan ma saacad qura u kala hadaan waa baran lahaydeen waxa u baahnaydeen dhibtayna haysato dhami waxay ka timi aljahlu bidiin dadku jahliga inaga haysta diinta bay ka timi ilaahayna aqoontii kaloo dhan wuxuu ku tilmaamay inaanay wax macno la samaynaysa ahayn yaclamuuna ظaahiran min alxayaati dunya iyadoo aayadda ka horeysa ilaahay yidhi walaakina akthara annaasi laa yaclamuun aqoon darra ilaahay ku sheegay haddaba waxaan leenahay tanna barta laakiin aqoontiina diintu haddaa kor u qaadaan waxa ay hagaajinaysaa tan inaad si fiican ugu noolaato si fiicanna wax ugu baratid aakhirana inaad guulaysatid labadaba ayay ku hagaajinaysaa marka dee waa idinka arkaya salaaddii inay maxay ku jirto in wax ka dhiman yihiin in wax ka dhimayin baa muuqata haddaba aan isku dayno inaynu diinteenna baranno oo si fiican u baranno diinteenna baranno si fiican u baranno si aynu aakhiriya adduunba u liibaanno صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم أيها الأحبة إن كل يبا إن وحبرتان بوصوك الله ذين مركا وركوبان باندن ورانيا لكن أنا سلايا هاي وحبو طريا مالين كستوين الصلاة كأنه إلهي بين السهور تاقنا سبحانه وتعالى إلهي نوحي نوهن ونيوئنا بري وحاوغفي عن انت انو ساقي سهور تاقنا انو كدل بالله ربي سبحانه وتعالى إنك ينوغو مهالين طلب كينا waxa layna baray dalabka ugu fiican aynu ilaahay soo hortaagno maalin kasta aan tukanno waxaan akhrinaa suurat al-Fatiha suurat al-Fatiha inta hore waa ammaan ilaahay la ammaanayo subhanahu wa ta'ala ila maliki yawmiddin laga soo gaadhayo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin وقفك وحا إلهي وحكا dalbaya sheeganaya
inuu ilaahay keligii caabudayo keligii ka kaalmo dalbayo qasdiga ugu weyn ee markaasi dalabkeennuna waa intan dambe 17 ragcadood ugu yaraan waa qofka tukada faradka qura waa 17 ragcadood 17 ragcadood baynu ragcad kasta waxaynu dhahnaa اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلاة كستا إلهي وحين ويديسنا اهدنا الصراط المستقيم إلهو تشتك قمان نغهانوني محي مهم تايني نتندل بنو هذا دركتو قف سفرة وسفر كتيرة oo haddana meeshuu u socday aan garanaynin jidku xaggu ka xigo ama aanay u caddayn isla markaana ay weheliyaan duul kale oo raba inay ambiyaan jidka dhaafiya soo ninkaasi khatar kuma jiro waa qof meeshii uu ku socday waddada loo maro waddooyin badan baa meeshan ka baxa laakiin halkii uu ku socday wadada geynaysa garan maayo waxa kanoo agdhow mid wada kale u tilmaamaya oo halkan fiican wadan baa meel fiican ku geynaysa tan raacle idinkaasi u dayaysay dayowga sama taqaanin Soomaaliga saa isku tii reer miyigu markay lugeynayaan dabeetana jihadu u socday uu garan waaya la dhaw uu dayoobay qofku markuu dayoobo markaa waxa ka luma jihaadku kala garan waaya marka waxay caado iyaga waa inay seexdaan bal horta inta miyirku ku soo degayo oo marka dambe uu tooso inuu jihaad kala garto qofkaasi uu dayoobaya dayowgaasi si aynu uga baxno nololeed ay noloshan aynu joogno waxay tahay cid garanayso dunida ku nool ma jirto la science baan sheegin ولا wax kale sheegin malay ka timi cid garanaysaana ma jirto malaha ugu weyn waxay dhahaan big bang baa dhacay oo maxaa ka horeeyay big bang cidana garan mayso malaha aadanu markuu isku geegeeyo wada big bang bay oo maxaa ka horeeyay cidana garan mayso xagee ku gabagaboobaysaa cidana garan mayso aadanuhu mid aqoon sheegtay iyo mid aan aqoon sheegan jahligaas ku nooliyay ولذلك بكو ضيو لها ويقو علمي بدني قرني هوري نكي سومري ألبرت أينشتاين أي هذا وا أقويه هنكي علمي أما مسكح دي ساينس كوجو إني ده كتل مامان أي وحول إلا بالشيء بدنا حدود ما لبويري ويسجارك تديس الكون بويري يونيفرس كحدود ماله قرن ما ينمل وكنا ماضو جهل الإنسان حدود ما لبيري أقول درد بني آدم كنا وأنك إلى هادتك قرون يا يوجو أقول يا هنسني يا وحولي أقول درد بني آدم كنا حد ماله كون كان حدا نوقرين ماله سيدا وجد بإلهي وحي نوجو هنوني إني نويدي سنه اهدنا الصراط المستقيم إلهي يوجدك قمن نقو هانوني هاي علماء يراهدان هدايات كقرآن كقصاء أفر مرتبة وكلا قدسين وياه مرتبة كوات هانوني قرآن كوكور رمي واتنا إلهي لا يسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى إلهي خلقك يسقى أنتو أبوري تسوية وسمى يورد ما يستري تسوية هو كمال الخلقة والذي قدر فهدى كمال القدر كنا وهداية هذا إيشانغويي إنولها مدول باوحي نولشي سكوتشر تكوهنوني نبي موسى محولها ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ربك واكو مركو فرعون يري وهذا ربك وحويان كوح والبا أبوري كهنونيي
wixii noloshiisu ay u baahnayd oo aadanaha tusaale ahaan ilmuhu markuu dhasho naaska hooyadii ma cid baa u sheegtaa haddaynu khubarada dunida oo dhan isugu yeedhi lahayn oo ilmo yaroo aan naaska sida loo nuugo garanayn la keeni lahaa cid hanuunin kari lahayd ma jirtee cid u sheegi kari lahayd naaskaa in la nuugo intaasoo muruqiya intaasoo meelood baa shaqaysa farsamadaa cidina ma bari karteen waayo da' waxbarashaba ma joogo imankuu dhashay ilaahay baa ku hanuuniyey subxaana wa tacaala khalqiga ilaahay abuuray mid waliba siduu u noolaanayo ilaahay baa ku hanuuniyey siduu isu difaacaya ilaahay baa ku hanuuniyey maanta haddii bahal halkaa kaaga soo baxo adigoo isa sii daayay unbaad arkaysaa soo maaha miyaad ka fakartay talo ma carartaa ma istaagtaa waxaa miyaad ka fakartaa mise waad jeesataa waa programmed baa tahay programmed ayaa tahay oo ah noolahan bar ilaahay wuxuu ku hanuuniyey inay orod isku difaacaan qaar waxaa lagu hanuuniyey inay qaniye iyo wax isku difaacaan qaar waxaa lagu hanuuniyey xataa ur iyo qurmuun jinaca iyo waxyaabaha yaryaroo dhamme qurmuunkani wuxuu ka mid yahay difaaciisa waxaanu sii daynayaa noolo kasta siduu u noolaan lahaa siduu u tarmi lahaa siduu isu difaaci lahaa siduu jiritaankiisa u ilaalin lahaa ilaahay baa ku hanuuniyey kaasi waxay yidhaahdaan waa hanuunka koowaad ee qur-aanku uu ka warramo hanuunka labaad ee qur-aanku uu ka warramo ee ilaahay subxaana wa tacaala ina hanuuniyey waa bayaan in nolosha laynoo caddeeyo markii layna siiyey samac iyo basar iyo caqli markii ilaahay ina siiyey ayaa haddana waxaa rabbi leeyay innaa hadaynaahu sabiila ima shaakiran wa ima kafuura وهديناه النجدين إن علينا للهدى ولكل قوم هاد وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأئمة يهدون بأمرنا انت صدمي إني وحنون سابا إلهي تلمام إلهي وحشيقيا هنون كان وعدين مركان عقلي iyo indho iyo basar iyo wax lagu kala garto ku siiyay ayaa haddana waxaan ku cadeeyay baa ilaahay leeyahay labada jidka lagu lumo iyo jidka maxay lagu hanuuno ee lagu badbaado waxay dhaadaan labadan jid cadeyntooda waxay ku xidhan tahay miisada gaarka ilaahay bini aadamka iyo thaqaleenka siiya xurriyat al-ikhtiyaar ilaahay kuma qasbin waxa uu ku siiyey xurriya al-ikhtiyaar inaad xor tahay oo wax dooran kartid markaas haddana wuxuu kaloo ku siiyey waxa kala dooran lahayd waxay yihiin adigu dooran lagu yidhi dariiqyada la maraana waa kuwaasi waanan kuu caddaynaya inna calayna lalhuda annagu korkayaga yahay baa ilaahay yidhi inaanu wax caddayno annagaa labada jid idin kala tusinayna aday kugu xidhantay markaa imaa shaakiran wa imaa kafuura inaad nicmooyinkaa lagu siiyey mid shukri naqaya tahay oo jidka saxa raacaya iyo mid ambanaya inaad tahay oo doqonnimo ku dhantay waayo haddii magaaladan meel ka mid aad ku socotay oo magaaladan aanad garanaynin oo laakiin lagu siiyo magaalada maabkeedii oo dhan iyo kataloogeedii oo dhan oo lagu tilmaamo waddo waliba halkay ku geynaysa iyo meeshaad ka weecanaysay iyo gurigii aad rabtay sidaad u tegi karayso ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waa idiin caddeeye idinkay idin jirtaa inaad ka saxaa maraysaan iyo inaad ka qaldan maraysaan waxay culammadu yidhaahdaan hidaayo saddexaad baa jirta oo ah ciddii doorashadeedu sax noqoto ee doorato jidka fiican kaasina gargaar kaluu iga helayaa baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacala waa u sii gargaaraya waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana kuwa jidka iyaga ku dadaala baa ilaahay leeyahay jidka saxaa qabsada lanahdiyannahum subulana waaladiina ihtadow zidnaahum huda kuwa hanuuna baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala
ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u kordhinayaa hanuun kaluu u kordhinayaa oo wuxuu ugu gargaarayaa jidkaasi sida ay ugu sugnaan lahaayeen taa hidaayatu tawfiiq bay culammadu yidhaahdaan oo ilaahay unbaa iska leh xataa nebiga baa ilaahay leeyahay in taxrus calaa hudaahum faina ilaahay muxuu leeyahay haddaad hanuunkooda ku dadaasho ma awoodid inaad hanuuniso ciddii ilaahay luminayo innaka laa tahdi man axbabt walaakina allaha yahdi man yashaa ilaahay baa hanuuniya cidduu doono adigu se kuwaad jeceshahay qalbigooda hanuun ma gelin kartid baa ilaahay leeyahay waayo ilaahay xorriyad buu ku siiyey cidna kuma qasbi karta kale laakiin rabbi wuxuu inoo tilmaamayaa subxaanahu wa tacaala man yurid illaahu an yahdiyah yashrax sadrahu lilislaam ilaahay cidduu doono inuu hanuuniyo ugu gargaaro laabtiisaa loo waasiciyaa islaamnimada quruxdeeda uu arkaa dhaqanka fiican buu gartaa wuxuu ku taladudaa ama macaansadaa cibaadada iyo jidka fiican hayntooda waxaa agtiisa ku fool xun oo ka yaqyaqsoodaa ka xishoodaa jidka macsida inuu maro ilaahay baa kaasi deeq uga dhiga hidaayada afraad waxay dhahaan waa ta aakhiro fahduuhum ilaa siraati aljaxiim kuwana la yidhi kuwana ilaahay leeya ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati yahdihim rabbuhum biiimaanihim tajri min taxtihim alanhaaru qolana jannaa lagu hanuuninaya qolana waxaa lagu hanuuninaya maxay naar baa lagu hanuuninaya haddaba afartan hidaayo ilaahay waxaynu weydiisanaynaa ihdina الsiraata almustaqiim ilaahay waxaad nagu hanuunisaa jidka qumman anaa raacaya oo doortay laakiin dehila salaad baabad ku jirtaaye markaanaad leedahay jidka toosan igu hanuuni waad dooratay inaad dee tukato oo salaad baad u taagantay dabeetana waxaad leedahay ilaahow jidka igu sug oo igu hanuuni oo aan noqdo kii haye ee ku sugnaada waddo kasta oo la raacaa calaamado fiican oo lagu gartay leeday iyo meelo digniina ku qoran yihiin oo lagu leeyahay halkaa ha marin halkaana ha marin jidkan aynu ilaahay weydiisanaynaa waxaa laynoo tilmaamay taariikhda bini aadamka ee soo jireenka ahayd waxay ahayd qolo raacday oo kuwii hanuunsanaaya iyo qolyo ka weecday ilaahay wuxuu ina leeyahay jidkan dadka maraa waa saddex qolo uun markaa qolada koowaad waa qolada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay siraata aladiina ancamta calayhim ilaah waxaad nagu hanuunisaa jidkii kuwii aad u nicmaysay kuwa loo nicmeeyey qur-aanku wuxuu ku tilmaamayaa waman yutic illaaha waalrasuul ilaahay wuxuu tilmaamayaa cidda alle iyo rasuulka aqbasha ee jidkooda raacda fa kuwaasi waxay la mac yihiin baa ilaahay yidhi alsidiiqiina waashuhadaaa wasaalixiin dadka inta wanaagsan kuwan ilaahay u nimceeyey waa gruubka xataa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay intuu nebiyadii hore uga soo warramay ayuu wuxuu ku yidhi fabihudaahu muqtadi jidku kama maarmo modal bini aadamku waxay dhahdaan kama maarmo tusaale cidu ku daydo ilaahay rasuulkiisii moxamed ah calayhi salaatu wasalaam buu wuxuu u tilmaamayaa waddadan waa lagaaga horreeyey waa ariiq mucabad ah waa ariiq la budliyey oo cagta bini aadamku hore u martay oo dadkii saalixiintaee hore u mareen dabeetana ilaahay intuu dhowr iyo toban nebi ka warmay buu yidhi fabihudhu muqtadi kuwa hanuunkooda iyo jidkooda raac baa ilaahay subxaanahu wa tacaala idan haddii aynu rabno hanuun dhaba inaynu qaadanno waa inaynu raacnaa jidkii ay mareen kuwaasi su-aasha isweydiinta leh waxay tahay haddii aanad garanaynin kuwa hore waddadii ay mareen sidee baad jidkooda u raacaysaa
dhalintu hadda waxay taqaanaa dad kale model u ah, dad kale tusaale u ah, kuwa kale baa la qaybsan yahay waxay sameeyaan. waxaa laga yaabaa haddaan kabimka soo xidho inaad tidhaahdo waa tii Maradona xidhan jiray, mise idinku Maradona ma idin soo gaadhin? idinka waa tii Ronaldo iyo Messi, soo ma aha. yani waxaa laga yaabaa dad kale inaad qaybsan tahay, wuxuu cuno, wuxuu cabbo, fasaxyada meeluhu tago, dharka uu xidho, qadaadka sida uu xiirto, in waxaasoo dhan la garanaya laga yaabaa. laakiin kuwa in ilaahay qur-aanka kaga warramaya uu leeyahay waa qoladii liibaanay, siraata aladiina ancamta calayhim, inaan cidiba garanaynin. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam siduu u seexan jiray, wuxuu cuni jiray, siduu u cibaadaysan jiray, waddaduu mari jiray, salaada siduu u tukan jiray, dee haddaanad garanayn ku dayan kari maysid. ku dayashada waxa ka horaysa aqoon. su-aal ma idin weydiiyaa? kitaabka yare Abushujaac la yidhaha ayaa yaqaana. waxa Abushujaac dhigtay miyaa leediin? oo say salaadiinu waa saxaysaa markaa? imsaa tukada? intiinaa soo dhammi waa tukataan. Abushujaacna maydan maqal, see la yeelayaa markaa? dhibta taagan baa waxay tahay waxaanad garanaynin lama matali karo. waxaanad baranin oo aanad garanaynin. bal su-aal baan idin weydiinayaa. adigoo wayse qaba haddaad najaaso taabato maxaad yeelaysaa? yaa imsaale waa la weysaysanayaa. haddaad adigoo wayse qaba haddaad najaaso taabato yaale waa la weysaysanayaa. kor u taagade imsaale. okay, yaale waa la iska tukanayaa. waa la iska tukanayaa, cid qabtaa ma jirtaa? waa ii muuqataa markaa inaydan Abushujaaci dhiganin. waayo najaasada miyaa la iska maydhaa mise waa laga iska weysaystaa? waa la iska maydhaa najaasada. adigoo wayse qaba adigoo wayse qaba haddii aad najaaso taabato dee najaasadu ma la iska maydhaa? ila maad kaajine. haddaad adiga ay kaa timaadaabay kaa buraysaa oo dee aad kaadido ama saxarootid. laakiin haddaad taabato dee waad iska maydhaysaa. waxay taasi tilmaamaysaa, waxaan taa u tilmaamay, waxaynan garanayn haddaynu rabno inaynu samayno waa dhib. waxa laynooga baahnaa waxay ahayd siraata aladiina ancamta calayhim inaynu baranno, jidkii kuwii ilaahay u nicmeeyey. ilaahay wuxuu inoo tilmaamay laba jid oo la yidhi iska ilaaliya. labadaa jid ee la yidhi iska ilaaliya waa kuwee? غayr almaqduubi calayhim wala الضaalliin. غayr almaqduubi calayhim, kuwa ilaahay u cadhooday. kuwa ilaahay u cadhooday waa kuwo wax gartay laakiin isticmaali waaye, ku dhaqmi waaye. wixii wuu garanayaa, laakiin isagoo garanaya ayuu haddana dhinac mara. maalan ninka tuugada garanaya, tuugadu soo inuu xunta la wada garan maayo. haddaad wax qaadqaaddo haddana ka waran. beentu inay xuntaysoo la wada garan maayo. haddaad haddana sheegta ka waran. in la tukadaa inay fiicantaysoo la wada garan maayo. haddaad haddana iska daysa ka waran. inaad ilaahay rumaysaa inay fiicantaysoo la wada garan maayo. haddaad haddana rumayn weyda ka waran. waa qof waddaduna u muuqato, laakiin shahwaatu nafsigiisa iyo masaalixda wuxuu moodaya iyo waxa kale uu rabo ayaa weecinaya. waddo kaluu iska haya, laakiin saxa wuu garanaya. qolada labaadna kuwa waa غayr almaqduub, waa kuwa ilaahay u cadhooday. waayo aqoontu maxay faa'iido leedahay? in lagu dhaqmo. haddii kale faa'iido ma leh. kuwani aqoon bay leeyihiin laakiin kumay dhaqmin.
waxaa lagu tilmaamaynayin kuwa ilaahay u cadhooday qolada labaadna waa qolo daaliin la yidhaahdo waa qolo lunsan qolada lunsane waa maxay aslanba wax may baran diintaba ma oga laakiin waabuu is leeyahay saxa raace sidaa u leedihiin marka najaasta la taabto baa la weysaysanayaa ayaa wax ka qaldan yihin yani wixii inuu sameeyo wuu rabaa laakiin waa maxay way ka qaldantay dalaalku dee waa kala waaweeye mid waa xagga sare dee waa tawxiidkii inaad ka lunto dadka dhalinyarada qaar baad maqlaysaa ilaahay jiritaankiisa iyo nebi maxamed iyo doodi kaga jirtaba hadda kownkan aynu joogno wax kasta oo yaalla waxay tilmaamayaan ilaahay jiritaankiisa kownkan aynu ku nool loo dhami gawaadhidan dabadda taalla adigoo aan weligaa gaadhe arag haddaad gaadhi ku soo bixi lahayd maxaad soo odhan lahayd ya dee adigoo aan weligaa gaadhe arag reer hargeysaba maalintii ugu horreysay dayuurad arkaan way carareen soo saa ma ogidin odayadan reer hargeysa ka mid ah ayaa beri ii sheekeeyey deetana wuxuu igu yidhi gaalkii ingiriis baa wuxuu nagu yidhi wuxuu lahaa buu yidhi laba bahaloo la tumo dee ma jirin waxaan laga hadlaya waxaan wax laysku gaadhsiiye waxa kan may jirin marka waxaa jiri jiray dawan waxa la yidhaahdo bir weyn oo la tumo arrimaha waaweyni markay jiraanna bir weyn baa la tumi jiray arrimaha yaryar markay tahayna bir yar baa la tumi jiray toddobaad baa birtii weynaydna loo tumayay buu yidhi oo la garaacayay oo la lahaa wax cirka duula oo dowladda ingiriis leedahay ayaa iman doona yaan la biqin yaan la shakinin dowladdaa leh wax dhibi ma jirto siduu ingiriiskii waxa uu sheegayay buu yidhi waxaa loo waday ayuunbaa xoolihii iyo dooxa hargeysa ka cabayuunbay maalintii dambe halkaa naasa habloo dhinaceedunba iyagoo waqaac loo qaylinaysa ka soo gashay wixii xoole cabayay waa dideen wixii shimbir geed saarraa waa yaaceen raggiina way carareen buu yidhi markaasaan ku yidhi oo dadku maxay u carareen adeer markaasuu yidhi culamadaanu ka maqli jirnay marka qiyaamuhu dhacayo sanqadh weyn iyo waxbaa la maqlayaayo yani ninkan waxaan la garanayn waxaan wuxuu waxaynan garan haddaynu gaadhay innagaan weligeen arag gaadhigan iyo waxaan lagu sheegayaa waa shalay 1905 baa gaadhigii horreeyey dunida la dhaqaajiyey 1905 waa 120 sano oo waxaan gaadhin haddii aynu halkaa gaadhi ku arki lahayn mays odhan lahayd uu iska samaysma rumaysan lahayd haddii ninku yidhaahdo ciidunbaa isu tagtagtay uno evolution siday u socotay ayuunbu gaadhigaa soo baxa wax rumaysan lahaa ma leediin waayo maxaad ku diidaysaa ya waxaad ku diidaysaan miyaa garanaysaan war gaadhigaasi just evolution chemicalist baa isu tagay ciid baa isu tagtay dhagaxbay qaybi noqotay qaybi quraarad bay noqotay qaybi bir bay soo baxday qaybi caag bay noqotay qaybi taayir bay noqotay dan akhiiran gaadhigaasumaa soo baxay maxaad u diiday waxay yidhahdaan caqligan sida ilaahay u abuuray waxa systemka la yidhaahdo wax hadduu system yahay order hadduu leeyahay nidaam hadduu leeyahay wuu iska ahaaday ma aqbalo bini aadamku wuxuu hadduu bilaa order yahay wuu aqbalaa wuu iska ahaatay haddaad iminka halkaas soo marto oo aragto dhagxan isku daadaadsan dabaysha keentay iyo waa iskaga daateen waad ka aqbalaysaa waayo there's no order nidaam ma leh laakiin markay isafulfuuleen ee daartaa noqdeen waa isla dhagixii uun halkaa toonsanaaba daarta isu bedelay wuu iska ahaaday haddaan ku idhaahda ma yeelaysaa maya waayo dee waxay ka baxday fawdadii iyo sudfadii iyo waxay u baxday maxay systematic order bay noqotay ma dunidan dhan ee aynu arkayno ee systematic ee sida tan u socota aan xidigina xidig jiidhaynin
ee dhulku caynkan u samaysay iyo dhirtu caynkan u samaysay baa iska ahaaday adoo waashaa ka fudud adoo waashaa ka fudud waayo markaad waalantay dee waxaynu odhanaynaa qofkii uu waasho waxba garan laakiin adigoo maanka qaba inaad tidhaahdo tani waa iska ahaatay adoo waashaa ka fudud that's more logic taasaa caqliga uga dhow waxaanu leeyahay markaa daalku midi waa mid asliyan ballumay midna waa mid isagoo garanaya diiday in badan oo maanta saynis yahaniya waxaan sheegtaa iyagoo garanayay diidaan kufrigu waa iraada waayo wuxuu rabaa shahwaadkiisa inuu u xoroobo wuxuu doonaa wuxuu samayn karaa markuu yidhaha waxba ma jiraan dee laakiin haddaad tidhahda waxbaa jiro waa la xisaabayaa aakhiraad dambaysa kamaa dambaysa waxaad doonto dee samayn maysa logic maaha waxbaa jira iyo waxaan doonaan samaynaya dee isma aqbalayaan markaa si uu beentaasi uu sheego ayuu isyeelyeelaya waa isyeelyeel sida u yaalla على كل حال لنا مركه غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهي بالله ما قنقلا كور هدات سكدا بقى شكواس هدي كيف فكرين نوالا نوسك حيرا هدات نسي يسوي حيرة تكور ننسك بوالا وكان كلية هيدين وشباب دادمي hadduu intuu surwaalka dabada ku nabaadna dabada ku nabta ka war hadda maaha qurux adigu aad fakartay waanad garanaysaa inaanu quruxayn waayo maalmaha hore waad yara khajilaysaa maalmaha hore kolba intaad gashataa waad iska bixinaysaa dadkaa kula yaabi doona laakiin markaad aragto dhowr yararoo kaloo waalan oo xidhan baad oranaysaa wallaahi iyagoo ku xidhan adna ku juf bini aadamku marar buu wax badan sameeyaa isagoo aan caqliga adeegsan سواء عقلك أديكس هذا عقلك أديكس كل وين بدي حولها كليتا إلى يقان كم حقت الأمي نار تيا قلا وراكو كويب ونار تقلبوا تبارك محكو شرا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير أهل النار كوا عقل الله أما واقف عقلي سقول أديكس واي diiday inuu sida fiican u adeegsado waxa laga yaabaa inaad tirahdaan oo ma qof baa caqliga isagoo ogsa ha sigaarku ma waxba mise wax fiican ya dunida miyaa aragteen qof bini aadam oo leh sigaar baa fiican wuxuu doona ma ha noqdo mid dakhtara mid jaahila mid caafimaadka bartay mid kale sigaarku waa wax qudhmuun waa dab waa lacagtaadiyo aad khasaaraynayso waa waxa caafimaadka waxyeelay intaaba dadku way garanayaan haddana qaar buufinayo soomaydaan arag oo caqligii may markaa dhallinyaraatiin waxbaa baranaysaan waxuu baranaysaan ee ugu horeeya dadku uu ka fakeraya maxaad u jeceshay inaad noqoto yaa dhakhtar raba inuu noqdo gacanta taaga yaa raba inuu injineer noqdo intiina kale maxaa rabtaan inaad noqotaan dadku muxuu dhakhtarnimada u jecel yihi inta ugu badan waxay ka mid tahay shaqada meel kasta oo dunida la tago shaqo lagu helo waa shaqo aan lagu ha hawl badnaata laakiin meel kasta oo la tago bariiska waa lagu helaa waxaa la mid ah shaqada macallinimada iyana meel kasta bini aadam jaahili wuu joogaa laakiin iminka waxaad moodaa lacagteedii baa yaraato dadku malaba ka cararaya qaar badan idan waxaana baranaysaan waxaa u baranaysaan waxay u badan tahay inay farhunguri tahay odayadii soomaaliyeed hore waxaa odhan jiray waa farhunguri yani waa in lagu xoogsado jaamacadda haddaad tagto maalinba fakaltka la yidhaahdo suuqiisa xamiyon bay ardaydu u badataa dee sooxiga maaha haddii imka layna yidhaahdo af ingiriisigaa shaqa lagu wada helaya dhammaantiin af ingiriisa wada baranaysaa soo maaha haddii imka shaqa af carabiya soo bixi lahayd oo qolada xaggan inaga xigtaa inuu nafisoo geli lahayd carabigaynu wada baran lahayd waxaad arki lahayd bahladan yarare habeenkii la dhigto oo dhammaantood carabo dhigaya idan waxbarashadana wadaan inteeda badan dadku waxay ku rabaan waxay cunaan
waana nolol gaaban. aakhira maxaad u malaynaysaa marka? noloshii dheerayd. nolosha adduunku hadday dheeraato 60 sano 70 sano meelahaasaa la noolaadaa, midhmidhka loo dheereeyo 80. laakiin nolol abadiye ah baad dambaysa. maxaad ku tala gashay? ma intaad meel fadhiisatay inaad tidhaahda ilaahu jannadaygee? waa nolol u baahan in wax loo barto, sida tanba un gurigeeda wax ugu baranayso inaad taana wax ugu baratid oo ugu shaqaysatid. waa nolol u baahan in loo diyaargaroobo. tan aad joogtana taa barashadeeda waxbay ka tartaa, oo haddaad taa u diyaargarowdo tanna waxaad baranaysaa markaa dariiqa saxee la maro. tanna amban maysid, toona waad ahlu jannaad noqon, tan intaad joogtana amban maysid. marka waxaan ku soo koobayaa, maalin kasta intaynu ilaahay is hortaagno 17 jeer haddaynu baryayno waxaynu ka baryaynay innagoo aan bilowno inaan ku dhaqaaqno. ilaahayna markaas inoogu gargaaraya. sala allahu calaa muxamadin wacala aalihi wasaxbihi wasalam, walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. سؤال ما يدويديه حاربتان أنا نغطان يا هرموت كدلك يا دلك. اشكر أحسنتي.